Guddiga Madaxa-Bannaan ee Doorashooyinka Xuduudaha IEBC Edung Ethacon ayaa sheegay inaanay suurtagal noqon doonin in doorashada soo socoto la xado ama la musuqmaasuqo isagoo tilmaamay in teknoolajiyadda casriga ah habraacyada kormeerka adag ee la sameeyay iyo hufnaanta nidaamka ay ka hortagayaan wax isdoomarin kasta. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya kadib doorashooyinkii ku celiska ahaa ee 27 Noofembar ka dhacay in ka badan 22 degmo. Ethacon ayaa arrintan kaga hadlay shir dib u eegis loogu sameeyay doorashooyinkii dhacay kaas oo la leeyahay danayaasha doorashooyinka, wuxuuna cadeeyay in nidaamka doorasho ee hadda jira uu yahay mid ka dhigaya faragelinta mid aan suurtagal ahayn. Guddoomiyaha waxa uu sheegay in qalabka KIMS ee loo adeegsado doorashooyinka kuwaasoo loo isticmaalay doorashooyinkii ku celiska ahaa ee 27 Noofembar ay shaqeeyeen 99%, taas oo fududeysay aqoonsiga codbixiyaasha iyo gudbinta natiijooyinka. Waxaana uu sheegay inay ku kalsoon yihiin qalabkaasi KIMS. Ethacon ayaa dhinaca kala qiray hoos u dhac ku yimid ka qaybgalka codbixiyaasha, hayeeshee waxa uu sheegay in isku day kasta oo lagu doonayo in lagu sameeyo doorashada inay fashilmaan meesha laga saari doono. To steal election in this country is an impossibility. These returning officers here can confirm to you, even observers, honest observers will tell you. As I talk, after voting, I could not go home. After I was announced the winner, my family cannot access home. And we are here playing like, is it Gunism in mchezo tu? The political violence, I think IEBC should take charge completely. They've got the rules and regulations governing the election. The head of these goons are the police service. That is the truth. I have had incidences where I was accompanying my party leader in different incidences where the police are actually part of the goons. I saw weapons that I have never seen, and as a woman, I am here to speak about women. I witnessed women going back and did not vote. You always call on us to come and cover your events, but whenever there are political activities, we do so in fear, because when going for that assignment, at the back of our minds, we know that we'll either be attacked by the police, the politicians, or the goons. If 22 by-elections can have the effect that we had, especially in terms of malpractices, what do you think is going to happen in 1,882 polling areas or electoral areas in 2027? I don't know whether those goons have specific labels for the officers to know that these goons belongs to the government, these goons belongs to the other party. As for the goons, as I have said, they have got no space here, and we are not going to allow, not under my watch. And I'm going to be very strong.